25 hadday gabadhu dhaaftaba أنا waxaan aaminsanahay maskaxdii ay badnayd waxay u keentay inay dhinaca kale u shaqeyso cuqdad bay ku beeraysaa ninka waa nin Soomaali abaal male maxay male dagaal bay ku jirtaa halka 17 jirka aad gabadh u baahan tahay inaad dhiiri geliso ku tar hore u soco sidan laakiin tan waxay kaaga baahan tahay inaad iyada masaxdo habeenka hadda caaw qosh ka seexato in soo kiciyo filim dad u game bush inta hore game tan ciyaar maxay baan ku keenay jalaata ku keenay oo xabiib qoshkeeno garaac igwa easy walaalkeen dee hawlishiisa wala way dheerto cuqdadii dumarka ay soo xasira afar dumar dukaan ka kiciyay shanaatana jir haday gaadhana gabadhu xilliga ugu maskax badan tahay way waqtigan kala ciyaarli baa ridaysa ragana cuqdadu ma qaadaan inanti mar nafteeda caqabad ku tahay oo waa marka ay guur ka raagto marna tii ka yareed bay caqabad ku tahay oo istaanki ba ka xiraysa waxa ku sheegay in yari kay inta qaadu walaasha ka weyn meed ku dhiraysan inay guursano oo maxaan kugu dhiran waay ya wax soo ka dareynanteeda hooyada ma ka yeelinba oo siiga yeelin oo saaniga yeelin laba iga yaryar maanta hadii dookhayga iyo calafkaygu ii soo baxo idinaga ma hor istaagayso yaa labada aqal ba ku tay kordhaa caqalad waa labadaba wallahi ana ku ahay ba ku tay kordhaa shaqaysatid shaqala aan waa dulinimo saawad samee kabaayiwi maxaa ku haysta walaalo tareer ba gaadhigi meelaya mayd 5,000 waa lacag ma taala maanta bal dariiqa ka saal 5,000 quruxdaada been ku sheegtay waryaa dhagiso mid la fahan quruxdaada iyo casaan adigu maareen marraacsa wiil ormay imka gaalka ku maraya walaal ma anigu ormay Soomaali baan noqdo marraacsa wararma waa bin sheegan saawisho marraacsa mid la fahan balse marraacsa mid la fahan no way marna waxaad hal mid la fahan walaal hal mid la fahan hal mid la fahan walaal wallahi waa lagu soo tabcay midi la faan walaala casaantan iyo quruxdan iyo shaarkan madow iyo been ku sheegin wixii reality ee dhaba nolosha dhabti waxay bilaamaysaa habeenka guriga la isku yimaado habiib xayaati waa been wax jira maaha nolosha dhabta rasmiga guriga ugu yimaado habeenka koobaad rag maxay dhahan been ku soo xirigal runna ku dhaq runna isu sheegno waxa la yiri umurku gaajowta waayaankeed aroosku gaajowtana waayada iyo isheeda waayo maxay raacday qurux been leh qurux been wuxuu soo wadaa ma jirto Soomaalidu way mahmaado waxay ku mahmaaday nin casnaata uga baqnin madowna naftaada uga baq marka ma jimcaad sheegaysaa waxaan sheegayaa inanka waayo walaal mid isla fahano waqtiga badan yaan iska qaadan mid isla fahano inanku wuxuu gaarina ma mayri karo sandwichna ma iibin karo shaqa ana joogo Maria abaay ba diyaarad laana dameer la amariyay waxa soo noqon saada u noolowniyo cid ha u noolaa okay dad baasatay ma halkii ay markii hore joogan maanta ma joogan way inantii wax baa la baray investment baa la galiyay jaamacad bay ka baxday dharkay sidataa qaaliya nolosheeda qaaliya halkay ku noosheeda qaaliya waxbarashada qaaliya waxay u baahan tahay nolol qaali ah ma aamini karto oo isma sii deyn karto inaan gidaar taagan ama gidaar ku qaylaya waanu nugulnahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala idinku mas'uuliyadiina siiyay qodob kale meesha yaala waxa weeye xaqiiqadan raba inaan taabto xaqiiqadu waxa weeye ragoo mas'uuliyadiina ma ka soo baxdaan ta meesha taala waa taas mideeda kale waxbarashada haddaan ka tanaasulo anigu maanta anaa tusaale u ah hooyaan ahay maxayda aan maanta reer lahayn haddii maanta waxbarasho aanan haysteen ama yaraanan wax lagu soo bareen carruurteeda maanta waan la rafaadi lahaa waan la kaca ku filhaa taama qabay waxaan qabaa inuu tumka shan laati gaadho inay wax fakhri laad muraadada ka aragto waxa laga yaabaa wiil yar oo dhalinyaro oo qoor dheer oo timo jajilcaan oo waxa ciyaalka xaafada ah hadiyo dooq kugu jiro laakiin waalidku jecel yahay marba nin mas'uul hanti ahaan iyo ma garanaysaa dhisan sababtaas darteed ba waxa laga yaabaa inantii aan ugu dhiiran kuna intaad ka bixin adigu waalidka miyaad ka dhaadhicin karin inaan ka yar quruxda badan leed sheegtay aad gursato u dooqaga yahay ha waad ka dhaadhicin kartaa laakiin si guud waxa laga yaabaa inantu inay hooyadeed kala baqanayso inay wiilka dhalinyarada ciyaalka xaafada inay u sheegto inay guursato waa jira waalid la tashada hablahoodii iyo nimadoodaba oo guurka kala tashada annaga garalayna oo qaar kood lacagta iyagu bixiyay laakiin waalid baa jira qiimeeya materialska muxuu ka bixinaya lacagtu maxay yahay meesha waxba la kala iibsay inantu qiimeeda lama jari karo horta taa ogsoonaada qiimahayga waa soo dhacay qiime taa inaga daaya qiimahaaga ilaahay baa subxaanahu wa ta'ala ku kalamay qiimahaaga lacag jari karamayso adduunna jari karmaayo dumarku hadii jeer ay ku celcelinayaan ay leeyihiin inaan waninka wax tarnaan raba nin ay wax taraan lama hayeen mas'uuliyad aanay lahayn wax isku saareen ilaahay ma saarin waxna taraan anaga wax tarayna ragga wax taraya dhageysta sida xaqiiqan la hadlay ama hadda jeclaanaysan jeclaada haday nacaysan naca waad bukoon kartaa waan ku caawin karaa waayo umadayda uma baali marka carruurtayda ma waxaan siyaa ciida
maciidaas iyo caruurteeda aad bay maasantay igu dhibdaa daaciga rashiido wax kaaga baahanayna ma jirto ninka wuxuu kaaga baahan ninka wax kaaga baahan caruurtaada caawi caruurtaada kori caruurtaada mustaqbal u samee way wada dayacayaan ubadkeeni maskaxin ba waaliin mustaxiin hadii waalaynta adoo sooba adaa ka tagay aad bay maasantay raggu waxay leeyihiin hablihii waxay nagu badiyeen lacagtii bay nagu badiyeen marka waxa doonaysaa guryaha fadhidaan maxaan u fadhiyanaa guryaha calafkaygan sugaynay nin sharafteeda kor u qaado meeqaamkayga sarraysiyaan rabnaa waay lacagtii rinda diiday lacagteen maxaan ku falayaa aye $900 inta marka lagu mehersanaya meesha ma neef baa liibsanaya inantuna hadday 20 jir ku gaadho dee guur la-aan 30 jir hadday ku gaadho dee waa gaari tiira ka daadegiyadii guurkanba waxay u haystaan ba xabsi aan xurriyad lahayn hablo marka hablaha dad waxaad guursan weydeen marka waxay kugu jawaabayaan 3 sanaan 4 sanaan yara xaraabaysanaya kadib aan guursanaya hal shakhsi baa dunida iska shukaasanaysa ka jeebkiisa ku xidhantay wuxuu haysto waynan iimaansanaa kaa kale wuxuu haystaa ima muuqanaya kana hadduu awoodo wax wanaagsan inuu iga bixin karo falilahi alxamdu anu kaasaan rabaa soo maha haddii aan awoodina wixii haystaa ku qancaya waa marka maskaxdaydaan ku socdo ma la odhan karaa habluhu caqabad waxa ka inay waxbarashadii iyo hawlo kale ay ku daba dheeraato oo guurkiisa uga raabo waxaana fiican inantu in ay maalintii gaadho 25 jir in waxbarashadeeda ay iyadu kaamisho intuu waqtigu saamixi waayay man sheegin oo dadka marka 25 markay gaadho inay waxbarashadii bilowdo maya dhammaystirato ha marmar baan israa ragga maxaa loogu baneeyay 4 waayo ragguba ma xataa midmid uma helayaan waxaan ognahay biological ahaan waxa weeyaan inantu inay 40 jirka ay spermka inta badan ku loos garayso haddii ugu badato 45 ay gaadho that's why waxa weeye inantii 30 jir ku bilowday 10 sano sheeka marka ugu dartay 35 bay gaaraysaa muhiimaddu waxay tahay raggii hore waxay ahaayeen rag xil leh xaal leh xero leh ragga maanta waxay noqdeen rag aan xil lahayn xil qaban karin xaal lahayn xero laga helanaanay jirin inantu markay weynaatay waxay og tahay waxay kala baranaysaa raggu wuxuu yahay horta kii waxay baranaysaa dib jirkaha kii waxay baranaysaa soomahoydaha kii waxay baranaysaa gidaarada ku qayilayay kii waxay garanaysaa aan nafteeda aan anfacayn bay garanaysaa waxaan hubaa afartaas wada guursaday inaan ka awood sareeyo aniga keliya u koobnaan doono midasaan aaminsanahay because lax walba halkaas dhigta lagu gowracayo waalidka maxaa la gudboon markay timaado waqtiga guurka ay ubadkooda guursanayaan number 1 horta aabihii baa meesha ka baxay waxaa la isugu yeedhaa aabbaha un markii ay inantii heshiiyeen ee la yidhaahdaa la isu meeriyo isagu wixiisa waxa weeyaan un gabadha markaa inuu bixiyo laakiin waa tiyaanu sheegnay way ka horeysaa talooyin badan baa ka horeeya ciyaalkii waa inay la hadli karaan reerkii waalidkii la hadli karaan si degan ay u sheegi karaan iyo baahidaas ay hayso waxaan rabaa inaan guursado waalidkii u guurin waaye gabadhiisa hadday dalbato guuro iyadoo baaliq oo gaadhi deeqaan gaadhi hadday dalbato u guurin waaye qof kuf ahna ay dalbatay waxa u guurinaya amiirkii baa u guurinaya madaxweynihii waddanka haystay ayaa u guurinaya ragga markay noqoto annaga markayna noqoto waa camal la'aanta camal la'aantani waxay keenaysaa inaad cabsato inaad baqato inaad is-aamin weydo inaad ku dhici weydo inankii intuu gabadha tusaalahaan qurux badan ama qaab wacanta uu jeclaado haddana jeebka aanuu saamaxin horta camal la'aantu way jirtaa abwaanku wuxuu ka dhawaajiyey heerin baa jiray imika heerin waxaa jira tiktok iyo facebook iyo instagram dhex yaala oo rasmi ah habluhu waxay ka hadlayaan meher ragguna waxay ka hadlayaan wixii arooska la dhihi jiray waxyaalihii ku hareersanaa guurka ayay ka hadlayaan waxaasaa cirka maraya marka hablaha haddaad tihiin idinkaa xukuma waana laga dhawaajiyey baan u malaynayaa iska qabta asxaabtiina hooyooyinkiina habaryartiina dadkaa rabaan inay la tuntaan habeenkaasay doonayaan arooskaa inay si fiican ula dhigtaan waayo koodii ayaa laga yaabaa inuu ka yaro hooseeyey waxay doonayaan inay hadda ka faa'iidaystaan maynantaydii qofkii maaha inuu ka fikiro adduunyo waayo xog ma soo kordhayaan adduunyadii waxaa ka muhiima inaad family samayso oo reer samayso waxa la yidhaha autism personality disorder baa jira oo qofkii inuu kaba tagaba inankii iyo inantiiba inaanu midna guurkii aanu danaynin marka waxba kama hor istaagi karaan guurkuna oo dee wax ilaahay xaggiisa ka yimaada maaha wax uu qofku qasab ku raadsado waxa la yidhaahdo social media waliba kaalinta baasha la yidhaahdo tiktoka waxaan hablaha u sheegay namadaba inayna aaminin nolosha social media kusoo biir dunida casriga ah oo maantaba qaado IBS Physical wax ka ogow faa'iidooyinka qaadashada kaarka casriga ah ee IBS Classic Physical IBS Physical Classic waxa uu haystaa ogolaansho caalami ah waxa uu ku fududeynayaa inaad si fudud u maamulin karto lacagahaaga meel kasta aad joogtid si ammaan ah xilliyada safarkaaga ha ka walwalin qaadashada lacag cadaan ah
IBS Visa Classic Card waxaad ku isticmaali kartaa dunida meel kasta aad u safartid adigoo lacagtaada kala bixi kara ATM-yada yaalla adduunka IBS Visa Classic Card waxaad wax ugu iibsan kartaa suuqyada iyo dhammaan dukaamada caalamka sidoo kale wuxuu kuu fududeynayaa inaad wax ka iibsan kartid internetka IBS Visa Classic Card waxaad si fudud uga jaran kartaa tigidhada diyaaradaha basaska iyo tareenada caalamka oo dhan ku horumari xirfadahaaga aqooneed oo wax ka bara internetka adigoo isticmaalaya IBS Visa Classic Card IBS Visa Classic Card wuxuu kuu sahlayaa in aad lacagaha aad ka samayso internetka ama kugu soo dhac baybalka ugala bixi kartid si fudud oo ammaan ah 24 saac 7 maalmood habeen iyo maalin waxa kuu diyaaray qaybta adeega macaamiisha oo aad la soo xiriiri kartid mar kasta iyo meel kasta qaadashada iyo dalbashada kaarka IBS Visa Classic Card waa in ka yar 5 daqiiqo booqo xarunta kugu dhow ee IBS Bank ku xirnow IBS Bank mar kasta iyo meel kasta